oo laga sugayay biciide shiribka boqod qodobka labaad wuxuu ahaa arinta Ceeriyaan oo 46 nin oo gacan ku dhiigla oo ah shiribkii soo weeraray ee sida talada ah ku galay ee ku weeraray ee dadka ku laayay ee ku dhaawacay ee hantida ku burburiyay tuulada Ceeriyaan oo ka tirsan degmada Cergaabo qodobka saddexaad wuxuu ahaa shabhadda garxajis bari la baxday ee ciidan beeleedka ah ee reerku samaystay ee nabadda caqabada ku ah ta gobolka iyo ta Somaliland saddexda qodob waxa laga doonayay biciide laba qodobna waxa laga doonayay garxajis bari waa sida iyagu sheegteen qodobkii koobaad ee biciide laga doonayay iyadoo marka hore bahal laga doonayay waxaanu culayska ku saaray gebi ahaan biciide yooris inta uu ka tira leeyahay waxaanu culayska saaray oo cadaadis saaray boho inay soo qabtaan dhacdada cidii loo qabto ka dambeysay habar jeclo ayaa iyaduna fadhiday oo suldaankii xamuud guuleed gurti uu wato oo iyaguna qayb ka ahaa culayska bahal saaray falillaahi alxamdu arintaa waa lagu soo guuleystay cid baa loo soo qabtay cidda dawladda ayaa gudoontay maamulka gobolka iyo nabadgelyada gudoomay reerkii wax tirsanayay baa ku qancay warkaasa baxay go'aankaasa lagu kala tagay qodobka looga dhaqaaqayay ee labaad oo ahaa Ceeriyaan ayaa waxa dhacday wax lala yaabay oo dadku qaadan waayay oo argagixiso ku noqday oo aan habar yoonis iyo habar jeclo ku wada hadlin oo sacad yoonis iyo biciide ku wada hadlin oo uu muduci ka noqday bara saabkii umada u dhaxeeyay ee nabadgelyada mas'uulka ka ahaa iyo taliyihii qaybtu ay iyagu muduci ka noqdeen oo yidhaaheen rag kale ayaa boho ku maqan oo biciide laga sugayaa arintaasoo miidiyaha gashay 22kii bishii 12aad 2018 waxaanu leenahay arintaa wax ka jira ma jiraan marka hore waxaanu leenahay cid biciide ah oo dambiile ah oo maqan oo baha ah oo biciide ka sugayay oo dawladdu ka sugaysay oo habar jecel ka sugaysay oo habar yoolis ka sugaysay oo maqan oo jiray oo lagu wada hadlay oo jiraan ma jiraan baan leenahay marka ugu horeysa waxaanu umada u sheegaynaa inay arintaasi tahay xaalad abuur inay tahay carqalad nabadgelyada gobolka ku soo korodhay inay tahay gogoshii nabadda oo la minjaxaabiyay waxaan u sheegaynaa umada gogoshii minjaxaabiyay waxa minjaxaabiyay bara saabka gobolka Sanaag iyo taliyaha qaybta oo si ula kaca oo bareera arinta muduci uga noqday oo afreer ku hadlay oo waxaan reer noo weydiin oo cid kale la weydiin iyaguna weydiiyay oo yiri rag kala idinku maqan oo aanay jirin arinta meel lagaga wada waxa xusid mudan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland hal nin buu noqday ummadda Soomaaliland nin bay naga sugaysay annagoo eegayna cadaalad annagoo oo nabadgelyada xaggeeda talaabo wanaagsan u qaadayna waxaanu keenay 2 nin ayaanu keenay waxa loo hayay arinta aritaan baa lagu hayay haddii lagu kuliyay garsoor bay sugayeen wixii ka soo baxay nasiibsanayeen sidaasaa lagu qanacsanaa raggaa uu bara saabku sheegay oo uu doonayo isaga ayaa yaqaana meesha uu ka doonayo iyo cidda ay yihiin waa arin uu isagu ku khusaysa keligii baaqa aanu diraynaa waxa weeye madaxweyne waxa cadaatay inaanu ku shaqaynaynin bara saabka gobolka Sanaag amarka madaxweynaha jamhuuriyadda qaranka Soomaaliland ee uu madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen kale oo Sanaag jooga oo degmada Cergaabo jooga oo ah in kulliyeena Xaaji Nuur inuu ka amar qaato in iyagu amaawiirta u yeedhiyaan inuu waxa ay iyagu doonayaan iyo rabitaankooda ku shaqeeyo taasaa cadaatay waxa arrinka u yeedhiyay waa
iyaga ayuu arrintaa u daba fadhiisto oo ka shaqaynaya waxaanu aad u cambaaraynayna oo aanu tacsidaynayna nimanka ah dhexdhexaadka ee salaadiinta oo uu si dhagaraysan u geliyay arrintaa isagu uguna khasbay inay codkaa ku hadlaan waxaanu leenahay waxaan u sheegaynaa in la gacan bidixeeyey guddiga in la gacan bidixeeyey inay arrintaa lagu dhagray geel ay duqdiisu durdurisay aarankiisa maxaad mooday bishii 12aad waxaa halkan isugu yimi dhaqankii beesha biciide yoonis oo dhammaantood wada jooga waxaanu marka ugu horeysa cambaaraynaynaa barasaabka gobolka Sanaag iyo taliya qaybeedka oo ku noqday carqalad nabadii gobolkan Sanaag laga waday waxaanu baaq u diraynaa madaxweynaha inuu tallaabo ka qaado horena waanu kugu sheegnay inaanu barasaab iyo maamul gobolka Nijo aanu ahayn nin dhexdhexaada waxa dhacday madaxweyne sidaad ogeyd beesha biciide waxaad u dirtay hal nin oo kaliya waxaanu keenay 2 nin oo dadkii ka dameeyay dhacdadii ka dhacday darar weyne waa naga aqbashay beeshii kale aanu iska soo horjeednay walaalahayna way aqbaleen shir baanu ku laga gudoomay had shalayna barasaabka iyo taliya qaybeedku waxay ku soo celiyeen inay keenayaan 7 nin oo kala doonayaan taasoo aanay la ogeyn guddidii dhexdhexaadka ahayd taasoo aanay la ogeyn culimadii waxaanu u aragnaa inuu yahay carqalad ku soo biirtay gobolka Sanaag oo ka horinaya dhibaato iyo dab aan loo baahnayn waxaanu madaxweynaha ka codsanaynaa inuu si degdeg ah u soo farageliyo oo u soo diro meesha tan gobolka Sanaag cid ku madasho nabadda madaxweyne waxaanu mar labaad kugu celinaynaa inaanan ahayn maamulkan cidii kugu matali lahayd wuxuu carqalad ku yahay nabadda wuxuu carqalad ku yahay bulshada wada nool wuxuu carqalad ku yahay wax kasta oo nabadda lagu qodob baan ka hadlayaa qodobka aan ka hadlayaa waxa weeye eeriyaan waqtigay dhacday ilaah iyo ummadba waa ogeyd waqti hore bay ahayd dawladdu ayaantaa waxayna sidii adina jooga oo nabadda haya annana wixii waxa geystay baan wax ka soo qabanaynaa wasiirka arrimaha gudaha joogay wasiirka kale joogay cid waliba waa joogtay barasaabka joogay taliyaha qaybta joogay 46 nin baanu soo qabanaynaa inta bilowda ay marayso madaxweyne waad xisaabay waad garanaysaa inta waa sugayni sidii baan u fadhinaa maanta looma jeedo cid u jeeda barasaabkiina iyo taliyaha qaybtana kuwa qaybta ku jira gudaheeda baan waraar la qabqabto waa kuwaas aan la qaban waxaanu leenahay alqaladee nabadda ku ah barasaabkii iyo taliyaha qaybta iyo waayeelka waxaanu halkan ka cambaaraynaynaa hadal ka soo yeedhay barasaabka gobolka Sanaag iyo taliyaha qaybta booliska waanu cambaaraynaynaa waanuna eedaynaynaa hadalkaas oo ahaa isagoo maanta maalintii ku afar ahayd gudoontay eedaysanayaashii loo soo qabtay dambigii ka dhacay degmada darar weyne isagoo gudoontay oo miidiyaha ka sheegay shalayna wuxuu miidiyaha mariyay in beesha biciide laga rabo 7 nin oo eedaysanayaala waxaanu leenahay annaga 7 iyo 1 midna naguma hadhin nalagana sugi maayo kuwii horeba nalaguma lahayn oo nalaga xoogay waxaanu leenahay arrintaa waanu ku cambaaraynaynaa waana carqalad waana nabadgelyo xumo arrintaa markii horena barasaabku miidiyaha ka sheegay annagana naga soo dhamaatay shalayna uu soo celiyay arrintaa waanu ku cambaaraynaynaa waxaanu kaloo ku cambaaraynaynaa 3 qodob ee madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi uu kaga tagay degmada Ceelaf Weyn oo ahayd 45 nin ee degmada tuulada Ceeriyaan dambiilayaashii 46 oo la soo qabto iyo ciidamada jabhadda maxay ahayd ciidan beeleedka dibadda ku maqan oo wax laga soo qabto iyo ninkii galay muxuu ahaa falka degmada darar weyne 3 qodob oo la fuliyo kii annagana quseeyo waanu fulino waanu keenay labadii kale tallaabo loo qaaday iyo cid ku maqan iyo wax ka soo laga soo qabtay midina ma jirto waxaanu u sheegaynaa madaxweynaha iyo wasiiradiisa iyo ummadda Soomaaliland badal iyo dibadba ilaa 2 qodob wax laga soo qabto oo ciidanka 46 ee Ceeriyaan ee gacan ku dhiiglayaasha la keeno ciidamada beeshaana wax laga soo qabto inaanana wax naga soconayaan jirin
yaashii jiifafkii caaqiladii biciide yunis horta marka hore taasaan ku raaxsanahay hadalka waa in dheheen oo dee kii ku tuman mayno maxaa keenay laakiin saxaafadan baa isweydiin leh waxaa keenay heshiiskii gobolka Sanaag ee istabajoog ahaa ee ka dhacayay gobolka Sanaag degmooyinkiisa dilalkii faraha badnaa iyo nabadgelyadii halkii ay xumadii ka dhacday maanta oo gebagabihii ugu dhaweeyay ilaa madaxweyne isugu yimi halka uu ka qaaday ninka la dhaho mas'uuliyiintii gobolka halka ay ka qaadeen oo bara saabka iyo hadiiba taliya qaybtu bara saabku waa wakiilkii madaxweynaha iyo xukuumadda waa hadalkan horta taasaa keentay qarax miina oo kii al-shabaab ayuu tuuray oo gobolku firdi iyo firdis uu ku kala tuuray habar jeclo hadday tahay habar yoonis hadday tahay dhulbaante hadday tahay warsangale hadday tahay waa kala diray arrinkaasina waa ka fog yahay Somaliland waa arrin ila xamarta xabbaanu annagu u malaynayna maadaaba uu shalay wixii hore ee la soo qabtay ee TV-ga laga sii daayay ee qoraalka lagu dhiibay ee labada beelood iyo guddida iyo xukuumadda wixii joogay isku raaceen uu bedelay cid la ogina aan jirin sidaa daraadeed xukuumadda golaha guurtida golaha baarlamaanka waxaanu degdeg u gaarsiinaynaa gobolkii Caarigaabo qatar buu ku jiray si degdeg ah loogu soo gurmadaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحيلتها هي ودود درجة هرايلي وحين نفتي ساعة يجا كهذلي أفهيانك بعيدة باش بعيدة أيه هذا الكلام ما يستري أنا هو هذا روحي أنا هذا كده بجيه هرتا أنتي يجوا رسي هذا الشيء أنت غير سنة مبدأ طبعا بانقبا وحنلا ومدحوينا جمهورية الصومال لا نشيجين وسعة بريرة ظاهرة وقاون وبوشيجين إنه كقبته مامورك قبل كسناك هدانو تابدين بعيد النبض ما هي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيش بهود ده مدحوينا أنا جنين بان نلاقي سوقي وبصور نولا بانو كدق نو عاد بانو ناحنا وحي كلا نلاقي دونا يا واد القاف أدنو يقدره قادنا ماينو وإحنا قد كراينا معها أنا هيجنا مري مايسو دقة هيجنا مقلي مايا والسلام عليكم ورحمة الله. عقاشة ويلك بعيدة بيشة بعيدة سيدا أي كهد ليان وانو اسكو رعسنا وانا وحرنا أودعي سيدا عقاشة شيء يسو كهد ليسو وارن وانا اسكو رعسنا وانا واحد عي وانا واحد وكيل دي الدولة السمائية يجوا وجهه دل دمبي يعلاد دمبي يمتي هو ركحمين يبعدوا يجوا وجهه ها برا سابك يتلي غيبك وحاي شيء بين أنشرين ميري هنا قلبي وحوي يوا بين تود وحاي شيء عريان وحا أنا هاي نبت قليا ذا سداد بلاد أدلي وحا نقصو دولي بيل وانا دشي وانا حنسوق ذي لما شوية داوع وانا وقيستي إلى الآن كنا وانا دول فرديدايو إني مر لبعض يا مرسد حاد بس وانا نقضان بين يسين وانا عيدا بيلات قرن دولتنا واكثر واحنا لو كقبتي او الدولة دي كقبتي لما شفت لحيا أفرتنين بانونا كقرنين لحيا أفرتن كيبا وجوغان عد نو سو قبتي لما شفتو عد هدا نو سو قبانا يسو نوغو مقاني لما شفتو مدحويني وحنو كقولا كلاني عيرف وين واحد نقول تيري وحبال لقا قبانيا وحنو كقولا كلاني عرقابو واحد نقول تيري عريان وحبال لقا قبانيا wax allaale wax laga qabtay ma jiro cid hadal haysana ma hayno cid wax soo qabatay ma hayno waxaanu kala sheegayna
ninka caaqilka ee jiif caaqilka ina kulli la yiraahdo ciidankaana galay inuu isagu rasaasta wiib oo saadka wiibi oo soo amba bixiyay oo hadda tan ka bixiyo wax walba dawladana la socdo oo dawladdu sidaa ku saacidayso dawladdu sidaa ku saacidayso haddana uu ku dhex jiro dawladdu waxaanu leenahay haddii aan 46 kana loo soo qaban haddaanina kulli naloo soo qaban nabadgelyo aanu haynaa ma jirto intaanu hayn lahayn waa haynay sidaasaanu leenahay waxaanu leenahay degdeg haddaanad wax u qaban nabadgelyo aad naga sugtaa ma jiro waxaanu leenahay isaga oo dagaalooge ah isagoo gacan ku dhiigla ina kulli isagoo gacan ku dhiigla isagoo dagaalooge ah isagoo bisha cas haysta isagoo jiif caaqila waxaanu leenahay haddii aan haddaan ninkaa la qaban ninkaa haddaan degdegna loo qaban oo dawladdu gacanta ugu dhigin nabadgelyaanu haynaa ma jirto oo laga joojin hay'adda oo uu noo adeegsado maalka hay'adda lagu laynayo iyo bisha cas iyo caawimada iyo gaadiidkeeda uu nagu laynayo